habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah hay'adda caalamiga ICRC ayaa ka walaacsan haweeney u shaqeynaysa oo la afduubtay iyadoo hay'adaha ammaanka Soomaaliya ay sheegayaan inay ku daba jiraan ciddii afduubka geysatay waa maalinta xorriyadda saxaafadda BBC-da ayaa ka hadashay dhibaatada saxafiyiinteeda ay la kulmaan balse waxaan si gaar ah u eegaynaa caqabadaha ay wajahaan gabdhaha wariyaasha ee Soomaaliya magaalo xeebeedka Lamu ee Kenya koox yar oo farsamo yaqaan ah ayaa dhisaya doon baco iyo kaba laga sameeyay oo ay doonayaan inay ugu safraan ilaa iyo Koonfur Afrika hay'adda caalamiga ee Lanqayrta Cas ayaa sheegtay inay ka walaacsan yihiin xaaladda haweeney ka tirsan shaqaalahooda oo xalay lagu afduubtay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho hadal qoraal oo ay hay'addu soo saartay Geneva ayay ku sheegtay waxay ahayd kalkaaliso maalin walba u shaqo gasha badbaadinta dadka iyo daryeelka caafimaadka ee kuwa ugu nugul bulshada Soomaaliya laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa diiday in uu faahfaahin ka bixiyo afduubka haweeneydaasi u shaqeynaysay ICRC sabab la xiriira xogta shakhsiga awgeed balse wuxuu sheegay in uu xushmad weyn u hayo dadka Jarmalka ee ka shaqeeya howlaha gargaarka caalamiga sida aad og tihiin dowladeennu iyada oo dhowraysa xogta gaarka ah ee shakhsiga wax faahfaahina kama bixiso arrimaha afduubka waxaanse hoosta ka xariiqayaa xushmadda gaarka ah ee aannu u hayno dadkaas oo dhan gaar ahaan kuwa Jarmalka ah ee dibadda ka shaqeeya ee caawiya dadka kale halistana u geliya naftooda laakiin dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dhowr qof u xirtay afduubka isla markaana ay og tahay cidda afduubka geysatay iyadoo ku eedeysay nin ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda ICRC gabadha lagu afduubtay gudaha dhismaha xarunta ICRC ee magaalada Muqdisho waxaa lagu magacaabaa Sonia Niyanet waxay u dhalatay dalkaasi Jarmalka waxaa afduubka geystay xubno ka tirsan shaqaalaha ICRC ama ilaalada xarunta ICRC ee magaalada Muqdisho ninka mas'uulka ka ah afduubkaasi waxaa lagu magacaabaa Maxamuud Maxamed Calas markii uu afduubka dhacay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isugu jira police iyo nabad sugid waxay gaareen goobta si loo xaqiijiyo amniga wixii ka haray dadka ku sugan goobtaas iyada ah sidoo kale waxay ciidamadeena xabsiga u taxaabeen tiro ka tirsan ilaaladii xaruntaas ka howlgalaysay waxay gacanta ku soo dhigeen gaadiidkii loo adeegsaday in afduubkaas isaga ah lagu fuliyo faahfaahin ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka helaysaan oo boggeena BBC Somali adigoo ka galaya mobilkaaga hay'adda UNESCO ayaa sheegtay in ay kordhayaan cadaadiska suxufiyiinta meel kasta ay joogaan shaqaalaha BBC-da ee London ayaa maanta isugu yimid dhismaha hortiisa si ay u taageeraan saaxiibadooda laanta BBC Persia oo intooda badan cadaadis kala kulma dowladda Iran warbixintan ayaa soo baxday maalmo kadib markii 10 wariye uu ku jiro Ahmed Shah oo BBC-da ka tirsanaa lagu dilay Afghanistan sidoo kale magaalada Hargeysa ayaa laga xusay maalinta xorriyadda saxaafadda jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday Somaliland waxaa lagu xiray tiro wariyaal ah oo loo haysto eedo kala duwan qaar ka mid ah ayaa la geeyay maxkamadda oo xabsiyo kala duwan lagu xukumay sidoo kale Muqdisho ayaa laga xusay maalinta saxaafadda adduunka guud ahaan Soomaaliya tan iyo 1992 waxaa lagu dilay 64 saxafi sanadkii 2012 waxaa lagu dilay ilaa iyo 12 saxafi waxaana kii ugu dhimashada badnaa ayuuna ahaa 2017 laba saxafi ayaa lagu dilay waxayna u muuqataa inay hoos u dhacayaan dilalka inkastoo ay jiraan weerar kale oo ay la kulmaan haddaba dumarka saxafiyiinta ayaa sheegaya in ay dhibaatooyin gaar ah la kulmaan marka ay shaqadoonka yihiin daraasad ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah ay la kulmaan arrimo la xiriira galmo shaqo ku bedelasho
wariyaha BBC da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan soo diray. waa tahay barnaamij wareedka galabnimo ee goobjooga codkooda iyo muuqaalkoodaba waa u muhiim warbaahinta balse shaqadan uma sinno ragga iyo dumarka sida lagu sheegay warbixin dhowaan la soo saaray maadaama dadka loo shaqeynayo ay rag yihiin milkiilaha uu rag yahay dadka shaqada laga soo doonanayo maamulka inta badan ay niman yihiin in gabdhaha shaqada soo codsanaya ay ku adkaato habka shaqada ay u helayeen kuwa oo inta badan lagu xujeyn jiray in saaxiibtinimo lala sameeyo haddii shaqada u baahan tahay oo kale ani saaxiib la noqo 13% suxufiyiinta haweenka ah ee lagu wareystay daraasadan ayaa sheegay in ay la kulmeen tacadiyo dhanka jinsiga ah ururka suxufiyiinta hablaha Soomaaliyeed oo daraasadan soo bandhigay waxa ay ka cabanayaan in sababo dhaqan darteed ay gabdhuhu uga aamusaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhowr arrimood diidaya in aan cadayntii aan banaanka keeno marka ugu horeyso waxa kamid ah in gabar warbaahinta intaas oo sano ku guda jirtay oo hadii maanta warbaameedii ay soo hor istaagto in ay arrimihii ku dhacday in ay go'aansatay inay ka sheekayso saameynta bulshada dhexdeeda ay ku yeelan karto gabadhaasi sumcad xumada ay kamid tahay because bulshadeena isku ma ixtiraamaan waxyaabaha qaarkood gabadhaasi magac xumo inay ku imaato oo kale in ay awoodi weyso inay warbaahinta ay ka shaqayso daraasadan ayaa xusaysa in tacadiyada dhanka jinsiga la xiriira ay dhacaan xilliyada ay gabdhuhu shaqadoonka yihiin iyo marka ay shaqada helaan intaba ujeedka ugu weyn ee daraasadan laga leeyahay waxaa lagu sheegay in ay tahay kor u qaadista aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ah ee Soomaaliyeed balse qaar ka mid ah gabdhahaasi ayaa qaba in daraasadu lafteeda ay sumcad dilayso gabdhaha runaantii daraasadan waxay noqotay mid anaga saameyn weyn ugu yeelatay sababta oo ah waxay u dhaadhacday nolosheenii dhabta ahayd wax laga sheegay sharafteeni iyo sumcadeeni dawladda Soomaaliya ma aanay soo dhaweyn daraasadan waxa ay ballan qaaday in ay haweenka ku tixgelinayso shaqooyinka warbaahinta la xiriira xukuumaddu iyo dawladdu waxay diyaar u tahay in wariyaasha wariyaasha maxaan ku dhahaa hablaha wariyaasha ah ee dumarka ee ka shaqeeya hay'adaha kala duwan ee warbaahinta in sara loo soo qaado annaga ayaa waxaan samayn doonaa horumar u noqon doona insha Allah ta'ala Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu khatarsan ee uu suxufi ku shaqeeyo balse markan khatartu waxa ay ka jirtaa gudaha xarumaha warbaahinta sida ay daraasadani ku waramayso Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in afti la qorsheeyay ee ah in dastuurka wax laga bedelo si loogu ogolaado in madaxweynaha muddo xileed kale oo uu soo noqdo 2 jeer ay hirgelayso inkastoo laga horjeedo 10 baadariyaasha madhabta Katoliga ayaa cambaareeyay aftida dhacaysa 17 May 100 ruux ku dhawaad ayaa ku dhintay waqooyiga Hindiya mid ka mid ah duufaanada ugu xun ayaana ku dhuftay gobolada Rajasthan iyo Uttar Pradesh badi dadka dhintay way hurdayeen waxaana ku soo dumay guryahooda geedaha iyo xarkaha korontada ayay duufaantu soo riday Cambridge Analytica oo ah shirkad siyaasadda ka tala bixisa oo saldhig u ahayd fadeexadda xogta la wadaagay ee Facebook ayaa ku dhawaaqday in la xirayo shirkadda ayaa lagu eedeeyay in si aan qumanayn ay ku heleen xogta shakhsiyaad 87 milyan oo adeegsada Facebook iyagoo wakiil ka ahaa macaamiil siyaasadeed waxay beeniyeen in ay wax qalad ah galeen waxa ka soo wareegatay 9 bilood markii magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq looga adkaaday kooxda la baxday dawladda Islaamka koox iskood isu xilqaantay ayaa boqolaal meyd isugu jira rayid iyo dagaalyahanada IS ka helay qaybo ka mid ah magaalada Aisha Afrax ayaa ka waramaysa la kulan kooxda ka ururinaysa meydadka qaybta qadiimiga ah ee Mosul Suruur al-Husayni waxa ay 6 bilood ee tagay ay hogaaminaysay koox isxilqaamayaal ah saddex maalmood ka hor waxaan helnay ku dhawaad 8 meyd maanta ilaa hadda waxaan helnay 10 meyd waxa ay ka koobnaayeen 4 qof oo kaliya balse baraha bulshada aawadood tiradoodu hadda waa 20 kulligoodna bilaash ayay ku shaqeeyaan qaarkoodna waa dhalinyaro 18 jir ah
dagaalku waxa uu dhammaaday bishii 7 ee sanadkii hore laakiinse weli qaar ka mid ah dadkii ku dhintay ayaa meydadkoodu ay ku hoos jiraan guryihii burburay dhismo kasta oo ay meydad ka soo saaraan kooxdu waxa ay isla sawiraan meydadka waxa ay u eg tahay mid aan habboonayn balse waa sida keliya oo ay ku diiwaangeliyaan tirada meydadka ay soo saareen meydadku waxay isugu jiraan dad rayid ah iyo kuwa ka mid ah dagaalyahanadii IS toddobaad kasta waxaan helnaa 100 meyd ama ka badan kaliya waxaan raadinta joojinaa habeenkii ama markii aan aad u daalno dhismahan keliya waxa ay ka heleen meydad ka badan 100 qof waxa ayna qaadatay 2 toddobaad si ay uga soo guraan lafaha meydadkaasi intaasi waxa sii dheer waxa ay heleen rasaas walxaha qarxa iyo suumanka la isku qarxiyo kooxdan waa iskood isku xilqaamayaal oo aan helin wax gacan ah lanqeyrta cas ayaa sheegtay in Mosul ay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu daran uu sida xun u sumeeyay hubku shaqaalahani lama siinin tababar rasmi ah waxa ayna u ururiyaan meydadka si aanay cudurro uga dhalan tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay Mosul wali lama hayo balse waxa lagu qiyaasayaa tiro u dhaxaysa 1,000 ilaa 10,000 oo qof markana wararka ciyaaraha Arsene Wenger ayaa doonaya in Arsenal ay guul ku sagootisay iyaga la kulmaya Atletico Madrid lugta labaad wareega 4 ee Europa League xagaagan ayuu naadiga ka tagaya kadib 22 sano uu maamulo ahaa lugta labaad waa in ay gool dhaliyaan si ay u helaan fursadii ay ku soo bixi lahaayeen Liverpool ayaa soo gaartay finalka horyaalka Yurub markii ugu horeysay ilaa 2007 inkastoo lugtii labaad ee xalay laga adkaaday haddana guud ahaan goolasha ay ku soo baxeen oo ah 7 iyo 6 saddex jeer ayaa laga dhaliyay Liverpool qaybtii dambe ciyaarta Roma taasoo noqotay markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan laga badiyo Liverpool markii lixaad ayay doonaysaa in ay koobka qaado ugu dambeyn waxay is arkayaan Real Madrid magaalo xeebadka Lamu koox yar oo farsamo yaqaan ah ayaa dhisaya doon ay rajeynayaan inay ugu safraan Kenya ilaa iyo Koonfur Afrika doontan ayaa laga sameeyay caag kabo iyo baca qashinka ah oo laga soo ururiyay badda waxayna doonayaan in ay muujiyaan doorka la dagaalanka bacaha qashinka Maxamed Xaraare ayaa eegaya waxaan isticmaalaynaa dacas iyo kabo aan ka aruurinay badda mararka qaarkood marka ay dadku ku raaxaysanayaan xeebaha dacaskooda badda qaada waxay ka mid noqdaan qashinka badda waan soo qaadnaa dib ayaanna u farsamaynaa waxaan dabadeed dusha sare kaga daboolnaa oon ku qurxinnaa doontan kaba badan ayaa dul sabeeya badda waxaa laga yaabaa inaad aragto kaba Yurub ka soo daaday oo Lamu dul socda qaar ka yimid Zanzibar iyo qaar ka yimid Soomaaliya waxaan sidoo kale ururinaa bacaha caagta biyaha kuwa oolyada iyo bacaha qashinka dib ayaan u farsamaynaa oo na isticmaalnaa si aan uga samayno tiirarka aad ku arki karto doonidan dhexdeeda farqiga u dhaxeeya doonta balaastiga ah iyo doomaha alwaaxa laga sameeyo waa in tan balaastiga ahi ay si fudud biyaha ugu dul sabayn karto waxaan ogaanay in qashinka bacaha ahi uu waxyeello u geysto xayawaanka badda ku dhex nool siiba kalluunka tusaale ahaan bacaha balaastiga ah mararka qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo uu kalluunku ku dhex xannimo sidaana uu ku dhinto waxaan sidoo kale aragnaa shimbiro dhintay qaar baad calooshooda ka helaysaa daboolka caagta balaastiga ah sidaa awgeed waxaan go'aansannay inaan yarayno qashinka waana sababta aynu u dhisayno doonidan si dunidu u aragto waxaannu rajaynaynaa inaan ugu amabaxno tan iyo Zanzibar wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawa intaan kulmi doonno habeen dambe aniga asxaabta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo